بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا قضبضا وراركا جنال كينا دايني لتيفي وقدور كرون وحانا كمد نقونيا كينيا oo dardargelinaysa xafiiska ay ka furinaysay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland mid ka mid ah ragii gaas uu u bixiyay 12 midowga shayaadiinta oo ka jawaabay al-shabaab oo sabab la yaab leh u xiray ninkii fuliyay qaraxii shalaambood laguna eegtay maamulka Shabeellaha Hoose farmaajo iyo uhura oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid tahay dacwadda badda Sheekh Shariif oo ka badbaaday shirqool lagu dhaabici lahaa sumcadiisa qarax saraakiil la eegtay oo ka dhacay magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya war cusub ka soo saartay xayiraadii magaalada Kismaayo ee dhanka cirka Faisal Roble bilada la siiyay farmaajo waa mid hooseysa oo sharaf dhac ku ah iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo qarax lagu la eegtay duleedka magaalada Muqdisho daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door corona intaan u gudagelin iyago faahfaahsan waxaan marka hore idin casuusinaynaa daawada haddii aad nagu cusub tahay janalka subscribe saar sidoo kalena gambareelka furo si aad uga mid noqoto daawadayaasheena koobaad ee ay u soo dhacaan wararkeena imankana u diyaar garoobo qodobadii aad maqasheen oo intaasi kasii faahfaahsan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa qarax lagula eegtay duleedka magaalada Muqdisho warar lagu kala soonaan karo oo goordhow na soo gaaray ayaa sheegaya in qarax uu kan golanyo uu la socday gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya sida Xasan Cali Nuur Shuute lagula eegtay duleedka caasimadda Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye qaraxa ayaa ka dhashay miino la dhigay wadada dhinaceeda taas oo lala bartilmaameedsaday gaadiidkan oo ka yimid dhanka gobolka Shabeellaha Hoose wararka ay helayso Daynila TV ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in gudoomiyuhu uu ka badbaaday qaraxaas walow uu jiro khasaare kale oo ka dhashay Xasan Cali Nuur Shuute iyo saraakiil kale oo la socotay ayaa ka yimid saldhigga ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Ceelsaniini halkaas uu dhawaan ka dhacay weerar lagu dilay askar badan oo ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay laamaha amniga oo ku aadan qaraxaas oo noqonaya kii labaad oo isla maanta ka dhaca magaalada Muqdisho iyadoona saakay ciidamo kale qarax lagu la eegtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaas oo ay ku dhinteen 3 askari Faisal Roble bilada la siiyay farmaajo waa mid hooseysa oo sharaf dhac ku ah aqoonyahan Faisal Roble ayaa si aad iyo aad u falanqeeya arrimaha Soomaaliya ayaa qoraal dheer oo uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu uga warbixiyay biladii shalay madaxweynaha Soomaaliya lagu siiyay dalka Mareykanka Faisal Roble ayaa sheegay in abaalmarinta konkaranka ay tahay mid hooseysa oo aan loo baahnayn in laga dhigin mid weyn runta waa in si daacadnimo ah loo sheego saaxiibkay ayaan ka arkay xog dhigaalkan waxaan filayaa in danjiraha wanaagsan ay ahayd in uu ku sameeyo baaritaan waxa ay tahay abaalmarinta Concordia aqoonsiga qofku waa mid wanaagsan laakiin tani waxa ay liidaysaa ama liiditaan ku tahay madaxweynaha Soomaaliya intaas waxa dheer waxay daciifnimo ku tahay wakiil wax bartay sida saaxiibkay inuu arintan nooga dhigo guul mudan aqoonsi qaran taasoo aan ahayn waxa la adeegsanayaa been abuur si guul looga dhigo meel aan waxba ka jirin Concordia waxay sameysay urur yar oo buunbuuniya mashaariicda caalamka oo aqoonsata dadka ka shaqeeya ururadaas qaar ka mid ah dadkii la siiyay abaalmarinta Concordia waxa ka mid ah Gloria Malonda oo ah aasaasaha ururka Ten Mom ee magaalada New York iyo Mohamed Yunis oo isna leh Micro Leon ee dalka Bangladesh ujeedkayga aan ku iftiiminayo dhacdadan waa rabitaan aan doonayo inaan ku dhiirigeliyo kuweena waxbartay si ay u yeeshaan tayo oo aysan u marin habaabin dadkeena boostiga aan ka hadlayo wuxuu dirayaa fariin qaldan sida in adduunka uu aqoonsaday guulaha madaxweyne farmaajo sidaasna ma ahan arintu in dheergaradka mas'uuliyadda ayaa ka saaran in ay runta xoojiyaan iyaga oo daacadnimada ka tegin Soomaalida way taqaanaa guulwadeen si la mid ah sida Afrikaanta Mareykanku ay meel fog uga ogaadaan cunsuriyadda abaalmarinta Concordia waa mid hooseysa oo uusan madaxweyne arin weyn ka dhigin karin abaalmarinta
Concordia waa NGO yar oo xiriir la leh jaamacadda tayadoodu liidato oo saldhigoodu yahay Virginia. Waxaan u rajaynaynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu maalin heli doono abaalmarin u dhiganta sharafta iyo guulaha xafiiskiisa. Maalintaas ayaan la dabaaldegi doonaa, laakiin tani ma ahan abaalmarin u qalanta ama loola dabaaldegi karo, ayuu yiri Faisal Roble oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay xayiraadii magaalada Kismaayo. Maareeyaha Hay'adda Duulista Hawada Soomaaliya Axmed Macalin oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay waxa ka jira xayiraadda dhinaca duulimaadka ee la saaray maamulka Jubbaland. Maareeyaha ayaa marka hore beeniyay in la hakiyay dhammaan duulimaadyadii Kismaayo muddo 3 cisho ah, wuxuuna tilmaamay in aysan jirin warqad rasmi ah oo ka soo baxday dowladda federaalka oo lagu joojiyay diyaaradihii tegi jiray garoonka magaaladaas. Axmed Macalin ayaa sidoo kale intaas ku daray in hadda aysan jirin wax xayiraad ah oo saaran Jubbaland, kaliya waxa uu xusay in shirkadaha diyaaradaha la faray in duulimaadkooda Kismaayo ay hadda kusoo wargeliyaan 24 saac ka hor, sida uu hadalka u dhigay. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay hakad gelisay diyaarad siday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ku sii jeeday magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana xigay amar la sheegay inuu ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo muddo 3 cisho ah lagu hakiyay dhammaan duulimaadyadii magaaladaasi. Inkasta uu hadda amarkaasi meesha ka saaray maareeyaha Hay'adda Duulista Hawada Axmed Macalin, khilaafka dowladda federaalka iyo Jubbaland ayaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa, kaas oo ka dhashay doorashadii dib loogu doortay Axmed Madoobe. Qarax saraakiil la eegtay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan gudaha Muqdisho ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miino, kaas oo lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa lala bartilmaameedsaday gaariga oo ahaa nooca raaxada xilli uu marayay dalcadda Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Ugu yaraan ilaa 3 askari ayaa ku dhintay qaraxaasi, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 2 qof oo kale oo shacab ah, kuwaas oo ka agdhawaa meesha ay wax ka dhaceen. Sidoo kale wararka ay heshay Daynila TV ayaa sheegaya in gaariga qaraxa lala eegtay ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Weliba ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi iyo maamulka degmadaba, balse waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya. Sheekh Shariif ayaa ka badbaaday shirqool lagu dhaawici lahaa sumcadiisa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhowaan laga diiday inuu u duulo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa ka badbaaday shirqool sumcadiisa ay ku dhiman lahayd oo lala rabay. Madaxweyne Shariif oo ah hogaamiye saameyn ballaaran leh, sidoo kalena lagu tiriyo dadka ugu dhow ee Soomaaliya hoggaankeeda ku soo laaban kara, ayaa dowladda Kenya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waxay u soo jeediyeen inuu diyaarad militari ka raaco magaalada Nairobi ee xarunta Kenya, taas oo toos u tegaysa Kismaayo. Inkastoo ay magaalada Kismaayo saaran tahay xanibaad ay ku soo rogtay dowladda Soomaaliya, ayaa haddana Kismaayo waxaa si maalinle ah u taga diyaarado dagaal oo ka baxa Nairobi iyo kuwa UN ah oo aysan waajib ahayn inay Muqdisho soo maraan ama Kismaayo laga celiyo. Daynila TV ayaa xog ku heshay in mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay u soo jeediyeen in uu ka baxo Nairobi isla markaana uu qaato diyaarad militari, maadaama uu yahay mas'uul xushmad leh oo dalka xil muhiim ah ka soo qabtay, sidoo kalena uu saaxiib la yahay hoggaanka dowladda Soomaaliya. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa Shariif u soo jeedisay in isaga iyo wafdigiisaba ay siin doonto diyaarad militari oo ka qaada Nairobi toosna u geysa Kismaayo kana soo celisa, balse waxaa warkaasi diiday madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif haddii uu raaci lahaa diyaarad militari oo ay leedahay Kenya, waxaa lagu eedeyn lahaa inuu xiriir la leeyahay Kenya, isla markaasna uu kala shaqeynayo qabsashada deegaanada Jubbaland iyo ka guulgaaridda muranka badda. Waxay geliyeen waqti dheer iyo maskax in ay madaxweynaha ku qanciyaan socdaalkiisa Kismaayo inuu ku tago diyaarad militari oo ay leedahay Kenya, laakiin kuma guuleysan hadafkooda.
ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Daily TV. Ma cadda in xubnaha ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ee soo jeedinta sameeyay in ay is ogaayeen, waxaana macquul ah in Kenya danteedu tahay in Shariif geysato Kismaayo si uu uga qayb galo caleemasaarka Axmed Madoobe, halka dowladda Soomaaliyana danteedu tahay in ay sumcad disho Shariifka. Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid tahay dacwadda badda. Wadahadallo 3 geesood ah oo ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ku yeesheen madaxweynayaasha Kenya, Soomaaliya iyo midka Masar oo dhexdhexaadiye ahaa, ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inuu ku soo dhamaaday isfaham. Arrinkan ayaa lagu shaaciyay bogga Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. Kulankan oo uu soo qabanqaabiyay gudoomiyaha Midowga Afrika ahna madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Siisi, ayay dowladda Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka. Madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac, kuwaas oo ka shaqeyn doona kamiro dhalinta is-afgaradka haatan la gaaray. Sidoo kale dowladda federaalk Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku adkeysatay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka, taas oo ay sheegeen in la isku waafaqay. Kenya ayaa marar badan ku adkeysatay in kiiska dacwadda badda laga soo celiyo maxkamadda oo is-afgarad lagu dhameeyo. Khilaafka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa gaaray halkii ugu xumeed bishii Febraayo, markii ay dowladda Kenya u yeeratay safiirkii u joogay Muqdisho, halka kan Soomaaliyana ay ku amartay in uu dalkiisa ku soo laabto. Wixii markaasi ka dambeeyay Kenya oo ku doodeysa in Soomaaliya ay ku xaraashtay magaalada London ee waddanka Ingiriiska ceelal shidaal oo ku yaal dhulka xuduudda ee lagu muransan yahay Soomaaliya, ayaa arrintaas si kulul u beenisay. Kulanka New York ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan labada hogaamiye tan iyo bishii March, markaas oo ay ku kulmeen magaalada Nairobi kuna heshiiyeen inay soo celiyaan xiriirka labada dal, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo labada dhinac markaasi dhexdhexaadinayay. Balse tan iyo markaasi waxaa dhacayay dhacdooyin loo arkayay in uu dhaawac ku yahay xiriirka labadan dal, sida Kenya oo diblomaasiyad u bilowday in ay diyaaradaha Soomaaliya soo maraan Wajeer, iyo Soomaaliya oo dalbatay in shirarka Nairobi ka dhici jiray qaybo ka mid ah loo wareejiyo dalalka kala ah dariska. Muranka dhanka badda ee u dhexeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamayay, waxaana sanadkii 2014 ay dowladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya, iyadoona dooneysay in soodinta badda ee labada dal la waafajiyo tan beriga. Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook ku qoray faahfaahin ku saabsan wixii ay labada madaxweyne ka wada hadleen. Waxa uu sheegay nuxurka wadahadalka madaxweyne Farmaajo, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ee uu gogosha dhigay madaxweynaha Masar oo ah gudoomiyaha Midowga Afrika Cabdifataax Al-Siisi. Waxay ka wada hadleen 1. in xiriirka labada dal lagu soo celiyo halkii uu taagnaa horaantii Febraayo 2019. 2. in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya kalsooni abuurista labada dal. 3. in kiiska dacwadda badda loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka. 4. in la sii joogteeyo wadahadallada. Wabilaahi tawfiiq. Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya ayuu warkaasi ka soo baxay. Ugu dambeyntii, Al-Shabaab ayaa sabab la yaab leh u xiray ninkii fuliyay qaraxii Shilaambood lagula eegtay maamulka Shabeellaha Hoose. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa xiray nin beeraley ah oo ka tirsan kooxdaas oo toddobaadkii hore mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo kuwa degmooyinka Qoryooley iyo Marka ku qarxiyay deegaanka Shilaambood. Daily TV ayaa ogaatay in Al-Shabaab ay ninkan xireen kadib markii uu soo wacay amiirkiisa, kadibna uu ku wargeliyay in uu qarxiyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya uu ku sii socday degmada Qoryooley, kadib markii ay ka yimaadeen soo dhaweyntii Kheyre ee magaalada Marka. Sababta loo xiray ayaa lagu sheegay in 2 arrin oo kala ah: 1. in uusan amiirkiisa ku wargelin qaraxa ka hor inta uusan fulin. 2. iyo in uu baajiyay weerar jidgal ah oo Al-Shabaab la damacsanaayeen mas'uuliyiintan. Sababtoo ah tobaneeyo ciidan oo Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa wafdigan loogu diyaariyay
deegaan keyn ah oo ku dhow halka lagu qarxiyey, waxayna taasi sababtay in ay wafdigu ku laabtaan magaalada Marka. Sababta uu qaraxaasi u fuliyey una baajiyey qorshihii lagu layn rabay wafdigan ayaa ah ujeedka ugu weyn in loo xiray qof ka tirsan mas'uuliyiinta la weeraray, ayaa Daily TV u sheegay. Alle ayaana badbaadiyey, waxay rabeen in ay nagu galaan dhul keyn ah oo ay ku diyaariyeen ciidan badan. Qaraxii dhacay, ninkii ka dambeeyeyna waa ay xireen oo qorshahoodii fashiliyey. Alxamdulillaah, ayuu yiri mas'uul ka tirsan xubnihii la weeraray. Qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof oo askar ah, waxaana ku dhaawacmay mas'uuliyiin heer degmo ah iyo ciidamo kale oo saarnaa gaarigaasi la qarxiyey. Al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas oo ka dhacay toddobaadkii hore gobolka Shabeellaha Hoose. guud ahaan daawadayaal, halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad kala socoteen channelkeena Daily TV. Intaan warkan warkii xiga ku kulmi doono annagoo isku duuban, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano Allah.